كانوا حيلانا يهبشوا حولاتا يو حلدبان حرمي وحفلنا قاقودو كانوا حيلانا يهبشوا حولاتا يو حلدبان حرمي وحفلنا قاقودو تتكلم حستو حنب لما ربي بلشا حوتي وحطاي حكومي تتكلم حستو حنب لما ربي بلشا حوتي وحطاي حكومي برديري وحمري وبكل حساب ذنب الله بعضو طاي حريك حرت برديري وحمري وبكل حساب ذنب الله بعضو طاي حريك حرفني ما هنلاهين ما حكومها بلشي حلو دالادك يوهو حلك ناقا قدول دك حدك 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 حرفني ما هنلاهين ما حكومها بلشي حلو دالادك يوهو حلك ناقا odayaashii dhaqanka ee Jubbaland waxaan taageersanahay soo dhaweynaynaa musharaxnimada Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaanan Ilaahay uga baryaynaa in uu u sakhira umurahaas iyo rabitaankiisaba waxaan intaa ku darayaa waxaan xildhibaanada federaalka ka codsan kuwii aan doorannay iyo kuwa Soomaaliyeed oo meesha isugu yimid in ay nagu xushmeeyaan oo nagu karaameeyaan codkooda maanta waxaan ka codsanaynaa rajo badanna ka qabnaa inay soo doortaan Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaan leenahay abaal weyn baan idinku haynaa waanan idinka codsanaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinaynaa in aad codka siisaan Cabdirashiid Maxamed Xidig salaam faraxsanahay hortu shirkan waxaan soo dhaweynaynaa afhayeenka baarlamanka dawladda dhexe ee Soomaaliya in uu isu sharaxay Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaan Soomaali ka codsanaynaa wax badan baan Soomaalida garab siinay in lagu garab siiyo arrintaa haddaan nahay odayaashii Jubbaland ee dawladda Jubbaland waabaha u ahaa ama dadkan meesha jooga u ahaa dhaqanka waxaan soo dhaweynaynaa arrintaas in alla waa ku rooyay aan nalagu garab siiyo إن لو قرب سيان سود ويننا جيس النبض وموتينا وانكو قرب تاجرنا السلام عليكم. ونمي تاجرده مشرح Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada federaalka iyo Soomaali weynba haddaanu nahay shacabka Jubbaland waanu taageersanahay waanuna ku raacsanahay inuu isu sharaxo afhayeenka baarlamaanka dawladda federaalka waxaanu isku raacsanahay
كأضيال أهان إنه يهي مشرح أنه أنو صدر سنة حدانو نهي جبلان waxaan intaa ku darayaa xildhibaanada federaalka waxaan ku darayaa intaa xildhibaanada federaalka Soomaaliya in ay Cabdirashiid oo ay wada garanayaan oo nin hawl kara oo shaqo badan wax badan la soo shaqeeyay in ay codkooda siiyaan ayaan ka codsanaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha baarlamaanka waan oran wuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Maxamed Xidig daraadii inaan isugu nimid baan aad ugu faraxsanahay gabayaan ku sagootiyay baan idin tirinayaa kii aan ku sagootiyay baan idin tirin hay gudban qaybtii koobaad Sayid Maxamed baa galay gaalalagad markuu yiri gudbantii labaad ee ujeedada gun iyo baar abwaanadu gorfeeyeen gadhka qaba gandaalow hadduu geesi igu yidhi gar alle walaalkay ka guddoomay anigu galoolkiiyo maraagiyo nin kastaba gabrada dheer ninba geed ha fule gulucdeedu waa meel waa garangar wada jira aniguna garaadkay halka ila gudboomiyo dayma gocorshadaydan gudintayda soofaha daruurkeeda gaadhsiin gigdhahoo ka sii gudub guntay oo haddana furag galay oo mar kale wadag ha galdaasa maansadu gacmaha u sii daa ha garteen tilmaante sarbeebtana ha gees mari subax geeddi loo kacay in la guura beeshii waa barkii guddoon tidhi gaadiidkaad raraysaad intaad gelisa keennada golihiiyo ardaagii iyo gurigii hortiisii gab intaad ka siisood kabad guudka fuushiya heerye lagu gabaangabo laba geesta yoombada gadhka xadhig maraag iyo kolkuu caynku giigsamo kabaalladu isgaadhaan guntimuhu nagaadaan gura loo sameeyee gurgurku iyo surradahoo gadaankoodu siman yahay intii gadowa loo xidho gura loo sameeyee meeshaan geeddi gelin iyo gudboodkii la saareen dhigihii galoolaa lagu goda dhagaatiga jarcaggaa fatolan iyo gibil lagu hagoogay markay gaadha kicintii bismillaahi guulow garuudkii la yidhi oho kolkuu guruca taagee geedda joog yahay mar labaad gadaal celin caynkii geejin loo galo la gadh qaada owlkaa goobtii lagu ballamay iyo guryasamo la gaadhaa haddii kale gablayn iyo gaddii dheeli weeyo wixii gurada fuuliya gurgurkiiba waa halis gaadiidkaan idiin raray waxaan uga golleeyahay hawl kastood gelaysaba midnimaa ugaada gigdhahoo ka sii gudub guntay oo haddana furag galay oo mar kale wadag ha galdaasa maansadu gacmaha u sii daa ha garteen tilmaantee sarbeebtana ha gees mari gaalgaal dhaliya tuug afgumaasan baa jira mas galaalan baa jira gaalgaal dhaliya tuug afgumaasan baa jira mas galaalan baa jira good laba aflaa jira gacandhiga qodxaa jira guuguulacii iyo galow qaygi baa jira gardarrooyin baa jira sidaad kaga gudbaysana midnimaa ugaada gigdhahoo ka sii gudub guntay oo haddana furag galay oo mar kale wadag ha galdaasa maansadu gacmaha u sii daa ha garteen tilmaantee sarbeebtana ha gees mari gar ilaah ka dood ma leh xaqu garab wadliil ma leh taariikhduna gaboog ma leh dad isgabayo sharaf ma leh fooli guda qarsoon ma leh gaalnima wanaag ma leh gacalkuna xumayn ma leh geeridu gorgora ma leh ma gaadhina idaam ma leh bakhaylkuna ku gudid ma leh gaadhi laba shufeer ma leh gogol dhaaf xalaal ma leh gooja beeni rimay ma leh beeni godol irmaan ma leh gabadhi guulla'aan ma leh nimaan gedinna la hadal ma leh nimaan gedinna la hadal ma leh gojoxo gunti qariya ma leh ka gaarjeexda xubin ma leh
garnaqsada xadgudub ma leh god lagala gelgelin ma leh god abeesa jiif ma leh guubaabasiin iyo gandaal gabay la'aan ma leh guubaabasiin iyo gandaal gabay la'aan ma leh waa gabdhihii Jubbaland wataa guurtigii Jubbaland giddigaanno kursigaa guradiisa xidig baannu korgeynay guddoomiyihii baarlamaanka xidig baannu kor saaray xidig baannu u doorannay ilaahay idankii waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ninkaa haddaan reer Jubbaland nahay annagu Cabdirashiid Maxamed Xidig yaan u soo doorannay Jubbaland dadkeedii oon waxba ka maqnayn Soomaaliya adna nala qaado waxaan leeyahay waxaan u ducaynayaa Cabdirashiid Maxamed Xidig gudoomiyaha baarlamaanka ilaahay ha siiyo isaga u ducaynaa waxaan leeyahay ilaahay raxmadiisa iyo risaqa ku balbalaariyo weliga ha rafaadin raaxada taala adduunka ruuxan waa ilaahay oo cimrigaaga la raaji rag iyo naga carruurta rabbi ku barakeeyo raalikaaga ahaa rasuulkeena udgoon iyo ambiyada lagu raaciyo rafiiqaaga noqday raastabaarka fardoosiyo jannada dhexdhexaaba oo rabbi ku naxariisay kursiga uu raadinaya ruuxliheeda uu ku jira annaguna aan rabno ilaahay uu rumee 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 musharax Cabdirashiid inuu soo baxo dadka jecel oo dhan baan salaamaya marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib annagu maanta waxaan isugu nimid taageerada runtii musharaxa aanu dirsanay gudoomiyaha baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka inaan muujinno haddaanu nahay Jubbaland odayaal dhaqameedyadeedii odayaasheedii dhalinyaradeedii inaan muujinno inaan taageersannahay waxaan ku dari lahaa oo kale Soomaali sidii horeyba loo sheegay odayaal dhaqameedyadii iyo xuqaashii hore ee hadashay baa warka dhamaysay waxa weeye midnimada Soomaaliya in badan baan ilaalinaynay dad badan baan ixtiraamaynay in badan baan jecel lahay midnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa khaasatan baarlamaanka inay nala ilaaliyaan maanta waxaanu soo dirsanay Cabdirashiid hadduu ay yiraahdo inay si qurux badan sidaan wax wala qaadi jiray inay noola qaadaan baan aad baarlamaanka uga codsanaynaa gaar ahaan oo baarlamaanka Jubbaland waxaan sii codsanaynaa inay arrintaas aad noogu sii garab istaagaan dhammaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay nala doortaan Cabdirashiid Maxamed Xidig Cabdirashiid waad ogtihiin muddo badan buu siyaasadda ku soo jiray muddo badan buu soo shaqeeyay wuxuu garanayaa maanta waxa xun iyo waxa san dadkii la soo qabsaday ee siyaasadda la soo qabsaday weeye ummadda Soomaaliyeed marka waxaanu jecel lahay annagoon shakhsiyadiisa kaliya u jeedin dadka wax tarahaya ee siyaasadda la qabsaday ee garanaya maanta ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda in la doorto baarlamaanka waxaanu aad ugu soo taakiidinaynaa Cabdirashiid Maxamed Xidig waa taqaanaan doorta assalaamu ثانيا لما حدق وحافريا وكل دارميا كان Jubbaland oo dhan baa isku raacsan inay ku soo dirsatay cadaalad samee waad noqotay xildhibaankii muxuu ahaa fayeenkii cadaalad ku wad oo insha Allah taala cadaalad ugu dawladda federaalka annaga soo dirsanay xidig dhamaantano odaganaga iyo nabadoonkanaga iyo hooyooyinkanaga ururada bulshada annaga soo dirsanay tixgelin baad in ka rabnaa waa in tixgelinaaye in la tixgeliyaa fiican labada daaran min dawladda federaalka min xidig oo cadaalad wabillahi tawfiiq Cabdirashiid baashi ilaahow badbaadasi Cabdirashiid baashi baxsow baarlamaanka Cabdirashiid waa mas'uul waa nin mowqif adag haddii la mutana tolkii meel xun kaga ma tago magaca Soomaali isaga matali karaa inuu baarlamaan maro meel kore tagaa wuu madan yahay Cabdirashiid meelahan la rabo mas'uuliyad jeeda iyo magan ilaah ku bare dhaladayaa tahay difaac daawaca cilmiga dalkeena gudihiisa adiga xumaanta dila dalalka kore iyo adaa dawladaha ku maqan adaan qaran dumisaheen dawladnimada jecel digri adaa haysta aqoon u dadkuba lahayn
siyaasadda dibaddaada door wanaagsan ku leh dadkii jubbaland adeey ku durbaantumeen salaadiintoo dhan way ku ducaynayaan dalkaagii hooyo soomaali daadahee ilaahayow caadil rabbiga cisiga lahow rabbigii cirka noo dhiso ciidda noo goglow cabdirashiidoo wallow caafimaad ku sii sidii cumar feen adeerka carriga ka tali suldaan cabdulaahi sidiisii cadaalad noqo cirkaad u eg tahaye rabbiyow laga cabsado ee caadilkan beriye colka intaa xalfaddan halkaan aan iskugu nimid waxaan ku caddaynaynaa annagoo ah haweenkii iyo odayaashii iyo reer Jubbaland maxaan ku dhahay xildhibaanadayadii ummadii oo dhan waxaan ku caddaynaynaa inaan soo dirsanay Cabdirashiid Maxamed Xidig suldaankeeni dhammaanteen haddaan nahay shacabka Jubbaland waxaan caddaynaynaa inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka dhexe Cabdirashiid Maxamed Xidig ninka soo bixi karana uu yahay wax badan baan annaga Soomaaliya taageernay garab aan siinay Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay gudoomiyaha baarlamaanka ay nala qaadato waxaan kaloo caddaynayaa xildhibaanada Jubbaland in garab aan maxaan ku dhahay codka annaga siinay iyo xildhibaanada Soomaaliyeed inay Cabdirashiid codka siiyaan si kalsooni leh ayagoo ka baarandegay niman asaga ah in wax u qaban karin halkan waxaanu isugu nimaadnay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo u sharaxan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka inayna qoys soo dooranin Jubbaland oo waxba ka maqnayn ay soo doorato suldaamadii saraakiishii hooyooyinkii wax ka dhan una jirin oon u wada dhannahay haddaan nahay reer Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xidig gudoomiyaha baarlamaanka waan ku qanacsannahay uu ka bixi karaa waa nin Soomaali haddaan nahay aan ku kalsoonnahay aniga Soomaali un baan nahay jifada Cabdirashiid ka dhashay miihi Soomaali baan ku imaadaa waxaan ku qanacsanahay Cabdirashiid Maxamed Xidig inuu maanta hogaamin karo xukuumadii loo doortay xarbi waad soo gasho xeebta dheere kismaha iyaadu tahay xasuus xarfatee taliyo xarbi waad soo gasho xeebta dheere kismaha iyaadu tahay xasuus xirfadnima aan lahayn ma xukumaha bulshe xeer u dhalalkiyo xilka naga gudoon xirfadnima aan lahayn ma xukumaha bulshe xeer u dhalalkiyo xilka naga gudoon xidig 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 xirfadnima aan lahayn ma xukumaha bulshe xeer u dhalalkiyo xilka naga gudoon xidig 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 xidig